السلام عليكم شيخ magacaygu waa Suleymaan oo jooga Sacuudi Carabiya su'aal ayaan qabaa sheekh waxaan sameeyay aniga iyo gabar mihir warqad bis lagu qoray magacyadeena marka mihirkaasi ma ahan mid jira waxaan uga dan lahayn oo kaliya inay ninkeeda amal igu kaxayso dabcan waxaan u maleynahay barnaamijyada buufiska oo gabar intay dibadda ka timaado oo qaaradda Afrika ama wadan walba uu joogo ugu timaado oo doonayso inay ninkeeda amal ku kaxayso diintu maxay ka qabtaa ayuu leeyahay Suleymaan الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد مهركاسي لبا مid buu noqonayaa waraaqda lagu qoray hadii la socotay shuruudiisi kala la dhameystiray oo wali wax ka ogaa siiqadii aqdiguna ay dhacday ama kasal dhab ha looga jeedo ama kaftan iyo meel kumar ha looga jeediyo dana kale guurkaasi gabadhu way mehersamaysaa نبينا صلى الله عليه وسلم وقال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد سدح دبتودنا waa dhab kaftankooduna dhab way waxa kamid aha guurka hadii aan wali la marin siiqadii aqdigiyana aan la marin sidan hadda la sheegay nikaax kuma guntamo mana ka dhalanaysa wax xuquuqa oo xuquuqdii zawjeenka ama meher leh ama nafaqa leh ama hadda inay soo xalaal noqdaan iyo gogoshoodii xiriirkoodii leh sidii bay labada qof ajnabi u kala ahaanayaan inta waxa dheer hadii mashruucaasi ganacsi noqdana waa ganacsi xaraana oo wax lagu kala qaati iyo lacag iyana waa ganacsi xaraana wuxuusan marnaba ka madnaanaynin cidda saddexaad ee labadooda ahayn ee loo sheegayo ee waxba laga dhoofayaa la leeyahay been baa loo sheegayaa mar waliba beentaana waa dambi xaraan wabillahi tawfiiq